xogayaha gobolada iyo degmooyinka ee xisbiga mucaaradka ee wicid barankan kula kulmay mudana xogaya waxaad faahfaahinaysa siisaa socdaalkii aad shaqo ee go'aan ka baxday gobolkaasi Togdheer iyo waxyaabihii aad kala kulanteen gobolkaasi. waa su'aal wanaagsan Caydaruus walaal kaaga mahadnaqayaa booqashada xafiiska ugu timid xisbiga wicid ahaan waxaanu qabanay safar baan ku baxnay aan ku tagnay gobolka Togdheer safarkaasi wuxuu daaranaa howlaha xisbiga u gaarka qaabkii aan u dirdirin gelin lahayn xafiiska gobolka Togdheer aan isku dubaridi lahayn iyo guddida gobolka Togdheer aniga xogay xilka gobolada ayuu ujeedadeeda ka mid ahayd socdaalkayga sidoo kale waxaanu barbar istaagnay oo aanu qalab sport ku wareejinay xulka gobolka Togdheer uga qayb gali doona tartanka gobolada Somaliland ee ciyaaraha dhawaan annagoo dhalinyarada u muujinay taageero isla markaana wacyigelin uga dhignay oo dhalinyaradii gobolka la dardaaran fiican u jeedinay waxaad moodaa gobolka Togdheer inuu gobolada kale uga yeerin ugu leeyahay xagga kala qaybinta oo wax bariya galbeed la yiraahdo wax aan garanayo ayaa dhalinyaradii la kala dhex dhigaya xulka gobolka u tartami lahayd waxa weeye gobolku waa gobolkii Somaliland lagaga dhawaaqay waa gobolkii madaxda ugu badan ee Somaliland ay ka soo jeeday haddii badeelinkeeda yahay waa gobonnimo doonka ku caana dadkiisuna dad fiican baa ku nool laakiinse ma aha in looga faa'iideysto dhalinyaradii la kala qaybiyo gacmooda jirba wax ku qabtaan gobolka Togdheer markuu isku duuban yahay ee uu si wada jira u ciyaaro oo xul ah oo heer gobol ah oo wada jir heer gobol ay isku raacaan iyadoo aan qabiil loo eegayno qofka xirfadiisa iyo qaban kara loo eegayo guulo badan bay gaari karaan dhalinyaraduna waa halbowlaha qarankan waa hantida qaranka leeyahay waa dhalinyaro meel kasta ay joogaan haddii gobolka Maroodijeex joogaan iyo haddii gobolka Sool joogaan haddii gobolka Awdal joogaan iyo gobol kasta Somaliland kamid ay joogaan dhalinyaradu waa hantida ama asadka uu dalkan iska leeyahay waxaana fiican in dhalinyarada ay ka xoroobaan fikirka kala qaybinta qabyaaladda ku taxalluqda jaahilnimada dadka aan aqoonta lahayn qofku markuu aqoon yeesho waa inuu u fikiraa siduu dalkiisa uu horumar u gaarsiin lahaa wax ugu baran lahaa xitaa imika dhalinyarada wax baranaysa jaamacadaha ku jirta haddii uu qofku wax u barto bariisku ku cun iyo haddii uu qofku wax u barto qarankaaga wax kaga bedel dee mid walba inama acmaal binniyaat buu xadiisku ahaa wa inama likulli imri'in ma nawaa wixii uu qofku niyeysto ayuunbaa loo aqbalayaa markaas socdaalkayga ugu weyn ee aan ku qabanay gobolka Togdheer wuxuu ahaa arrimo xisbiga u gaara run ahaantii waxa ugu muhiimsanay taa dhalinyaradan qalabka sporti ku wareejinay ee aan waliba u dardaaranay inay u midoobaan danta gobolka iyo danta qarankaba tiina way naga aqbaleen waana arrin aad u fiican waxaad la socotaa in madaxweynaha dalkaasi Soomaaliya inta badan faragelin bay ugu haysaa maalmo dhawid arrimaheenu ka hadlayay maxaad halkan fariin aad u marinay madaxweynaha dalkaasi jaarka ee Soomaaliya Allahu akbar waxa halkan iyaduna aan ka maqnayn horta waxaan leeyahay anigoo aan weli ka bixin gobolkii Togdheer waxaan doonayaa inaan yara dul istaago dhameeyo gobolka Togdheer maadaama aad weydiisay su'aasha waxa kale oo aan sheegay waxyaabaha aan ku soo arkay runtii aad kula yaabeen iyadana waxaan doonayaa kalmad yar ka idhaahdo arrintaa waxa u weynay dadka reer Somaliland waa bulshooyinka caalamka ay ka mid yihiin bulshaduna had iyo jeer waxa u dantaahay waa arrimaha bulshada hadday tahay biyaha hadday tahay caafimaadka hadday tahay waxbarashada hadday tahay kaabayaasha dhaqaalaha dhan walba leh marka waxa qurux badan bulshadu inay fahanto had iyo jeer marka ay meel isku timaado inay ka hadasho maxaa dan waa shacabkii bulshada waxaan arkay shirar gobolka lagu qabanayay oo aan runtii aad ula yaabay waxa weeye xisbiyada waxaynu u furnay qabiilka ka baxno qabiilo inaynu kaga baxno xisbiyada u furnay waxa jira dad siyaasiyiin ka faa'iideysanaysa bulshada oo dadka kicinaysa oo doonaysa inay bulshada inta kala qaybiyaan ka faa'iideystaan haddaba wax qurux badan bulshadu inay ma arrintaas ay ka baraarugsanaato oo aanay qof siyaasi dan gaara wata dhageysanaa dad ku fikiraan maxaa la noo qabtay maxaa xukuumadda noo qabanaysa bulshadu markay isku timaado waa in ay wada jir iyo ay muujisaa isku duubnaan haddii inagu maanta reer Somaliland isku mashquulno oo aynu inagu isku tiifiyada isu soo fadhiisano gambadhay isku fadhiisaneen habeenii maalin ba isku ishaysano Soomaalidu waxay tiraahdaa
yey iscunaysa libaax iskama celiso oo macnaheedu tahay yeydu libaax way ka adag tahay oo tiray ku disho way ka fara badan tahay marmar baa jirta libaax uu laayo goortu laayo wax markay yeyda isku xanaaqda yeydu iscunaysa libaax iskama celisa baa leeyahay marka reer Soomaaliland markay iyagu ay midba meel ka soo dhawaaqeen isu soo fadhiisay TV-yadan hab qabiilaysan loo wada hadlee dantii guud lagaga mashquulo teeni gaarka ahayd ee la isu jawaabo hebel ba xisbiga lagu wareejiyay maxaa lagu wareejin waayay hebel baa lahaay xisbiyadan qabiilada inuu kaga baxno samaysanay la yiraahdo hebel maxaa lagu wareejin waayay waxaas waa wax aad iyo aad loola yaabo waana ta sababaysa inuu farmaajo inuu soo dhex galo farmaajo waxa leeyahay Soomaaliland waa qaran midaysan waa qaran isku duuban waa dad tashaday waxba hadalkan TV-da ka socda eegi laakiin qulubta reer Soomaaliland waan ka midaysan dhanna waan wada jeednaa waxaanu nahay dal qura iyo dad qura noo maata inuu kala fikrad duwanahay noo maata inuu kala xisbi duwanahay hal qaran oo Soomaaliland la yiraahdo ayaan nahay qadiyada Soomaaliland maalinta noqotana dhamaanta iyo dhan baan uga soo jeednaa dan reer Soomaaliland farmaajo markaan wax leeyahay Soomaaliland wuxuu ku yeerimaysid dacaayid adigana waxba ku tarmaysid niyada ku dhisato Soomaaliya ayaad xukuntahay Soomaaliland baa qoos timaada Soomaaliland waa qaran madax bannaan oo 60 Ingiriiska xornimada gaar uga qaadatay wala dhalinyarada dambe been baa loogu sheekeeyay markii dambana la midowday Soomaaliya haddana ka soo noqotay adduunyadana ay ogtahay maantana Soomaaliland soo noqon maysee waxaan leeyahay riyada beenta ka bax oo Soomaaliland inta aad ku mashquulaysaa inta iska diiso madaxweyne dalkaaga ee gaarka ee fadeexadu ka taagan tahay ee ciidamada jaanibka ee imikana fadeexada maandhowta baraha bulshada waxa wareegay in habla dhalinyaro ka ooyaya oo runtii Soomaaliyeed wada dhalno dad Soomaaliyeed isku dhignaayeen isku diinaya in aanu adkeysan karo in baraha bulshada fadeexadii ka socotay ciidamada AMISOM lagu eedeynayay inay hablihii kufsanayaan oo waliba rag Soomaaliyeed ee baabuur ku qaadan habla yiraahdaan waanaga ku kaxaynaa ay dadna xirooyinka ugu geynayaan waxaan leenahay fadeexadaha ku hoos yaala ee aanu mar qura in ka hadli farmaajo ee kufsiga leh ee dadka sida xaqdarrada loo dilayay ee dhibaatooyinka muqdisho ka socda leh ee dadka la dulmiyayo leh kuwaas qurux badnaan ku mashquul kuwaas hoos yimaadeen inta Soomaaliland oo ka fog oo tashatay oo waxba uga danahayn uu 24 saacadood ku qarwaayo waxaan leenahay hawaawiga ka bax ya riyadaad riyoonayso dalkaaga sida doorsho gaarsiin lahayd hawlaha gaarka u qabsan lahayd uu ku xisaabta waati gabadhii inagu wareysigeena marayna waxaan jeclaa balado caasimada magaalada xaafadaha kala duwan magaalada dhinaca biyaha way u baahan yihiin oo baahi baa ka haysata oo way uuman yihiin hawshii biyo balaarantu way socotaa balada hawshaas sidii loo dardargelinayo mas'uuliyiintii wakaaladda biyaha iyo wasaaradda biyaha halka maxaa fariin aad marnay horta runtii biyaha Soomaaliland marxalado kala duwan bay soo mareen Hargeysa maanta waxaad moodaa markii sidaan u arkayno xawaari ugu badnaa bay ku socdaan runtii wax lagu farxo wax lagu faano in dhammaan min rawdadii Hargeysa wadooyinkii waaweynaa la dhameeyay xaafadiina waliba intii badnayd la dhameeyay biyaha qasabada la gelinayay waxa ila tahay inay maanta meel fiican marayaan ee waxaan leenahay hore uga sii wada dadaalka oo sida wanaagsan ee xaafadaha wada gaarsiiseen magaalada tuumbooyinkii biyahana insha Allah taala ina si degdeg u soo diisaan ayaan rajaynaynaa dalkan waxa uu dana wixii wax soo kordhinaya sida biyaha caafimaadka waxbarashada waan ku barbar taaganahay waan ku ugu haweyna waxaan aad rajo ugu qabnaa in biyaha sida u dhaqsaha badan la Hargeysa u cabi doonto sidoo kale maadaama arrimihii bulshada ku jiro doorashooyin soo socda doorashooyinkii deegaanka soo socda maanta dadka reer Soomaaliland waxaan leenahay war hadhow way qaylqaylin doontaan maanta xisbiyadii way tashadeen guddiye samaysteen 3 xisbi qaran waxa go'aan lagu gaaray in la sameeyo guddi ma garanaysaa heer qaran oo iyo heer xisbiba oo ka wada shaqeeya dadka dalka isu soo sharaxaya inay shaandhamirto kala reebto u noqdaan uma baahanin maanta inaan wax ku doorano reebeliya golaha kaga jira waxaynu u baahanay maanta inaan wax ku doorano wariyaa wax noo qaban karaya iyo wada dhisi karaya iyanu hantideena ku aaminaa iyo aamina iyo ilaahay yaqaan iyo aqoon leh inta markaynu hadaynu ku fikirno reer walba nin wanaagsan ku jira nin aqoon leh ku jira nin diin leh ku jira nin daalina ku jira reer walba magaaladana degantiin idinka nina intuu haduu nin golaha deegaanka la soo ma garanaysaa ay soo saaraan codka siiyaan haday reer ahaan xitaa ku soo saaraan deennina inta guriyooda ugu tago wax siin maayo
iyaga ka anfacaya waa ka arrimahooda bulshada ka shaqeeyay hadhow ku faanaan ay yidhaahdaan ninkaas waa ninkii wada hiblaayo dhisay ninkaas waa ninkii magaalada dhirta ka beeray ninkaas waa ninkii magaalada siwijka ama bilaacdaha wanaagsan ee daadka ka qaada iyo wasaqdan magaalada dhex fadhiisata sameeyey cidda horumar dalkan gaarsiisa ayuunbaa mudan hadhow in la barbar istaago ninka doonaya madaxweynaha noqdaa waa ninka maayar soo maray ee magaaladiisa qurxiya waa tigidhka lagu iibsado madaxweynenimada oo bulshada qabiil waxba lagama doonee imika maayarkan madaxweynahan turkigu Erdogan wuxuu ahaan jiray maayarkii Istanbul ee 2 goor markuu Istanbul heer gaarsiiyey ayay magaalo wala Turkiga kamid ah soo codsatay jiray annagana maayar noo noqo deeto markii dambe wuxuu dhaanu magaalo wala maayar ka noqon kari maayee hal mar baa ra'iisul wasaare soo sharaxay doorta waa la doortay wuu dhameystay waa loogu celiyay wanaagiisa markii laga yaabay adana waa loogu celiyay aakhirkii madaxweynaha laga dhigo garanaysa wadankiisana horumar uu gaarsiiyay marka waxaan leenahay dadka deegaanada u soo baxaya han noqdaan dad vision leh iyo mission oo doonaya inay mustaqbalka meel gaaraan dad doonaya Soomaaliland mustaqbalka madaxweynaha ka noqdaan maxay markaa ku noqon karaan madaxweynaha waa inay wadankooda qurxiyaan oo dadka isjeclaysiiyaan dadka maxay la isku jeclaysiiyaan waxa la isku jeclaysiiyaa cadaaladda iyo iyaga kaabayaasha dhaqaalaha ka shaqeeya shaqo fiican qabta magaalooyinka qurxiya maanta waad ogtahay dadka reer Soomaaliland wadadaada wanaagsan magaalada yar wada qurux badan samaystay Soomaaliland 2 bilood ba Facebook ka loo wareejiyaa lacni waa lagu faanaya haddii wax ka sii qurux badan qabtaan way fiicanta haddaba waxaan leeyahay maanta chances dadka reer Soomaaliland dadkii aad dooranaysaa maaha qabaayil war waxaan leeyahay qabiil meel wada degan ma jiro adduunyada waxa loo samaystay golaha deegaanka in kunkii guriye meel wada degani ama 2,000 guriye meel wada degani ay soo doortaan nin ku matala inuu soo wixii arrimaha bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha uga shaqeeya oo dawladda hoose markii maadada war dadkii soo doortay xuduudkaygu waa intaas maxaynu qabanaa maxaa horumarka loogu darayaa laakiin se qabiil meel wada degani ma jiro qabyaalada laga baxan oo lahaa dadka lagu doortay wax qaban kara iyo hargeysa qurxinaya waynu naqaana qofka wax wanaajinaya qofka xumaynaya isagoo aan la dooranin baan si naqaana wardad wanaagsan golayaasha deegaanka u doorta wardad wanaagsan oo Ilaahay yaqaana baarlamaanka u doorta intaas ku soo gogoynaya